السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qiimaha badan soo dhawaada meesha anaga daawanaysa waa Mustafa Daahir Official horta ayaan waa ka maqnayn meesha ayaan waxba maana soo jeedin waxba maana soo dhigin marka waxaan rajeynayaa intaas inaad nagu qaadan doontaan insha Allah idinkan waxaan rajeynayaa hadda muuqaalkan soo dhignay insha Allah like-ta subscribe-ta insha Allah muuqaalkan dhammayso haddii Ilaahay yiraahdo horta kow waxaan ka bilaabaynaa horta alxamdulilah Ilaahay waa mahad iska leh ayaan waxba maana soo dhigin qodobka labaad waxaa waaye ilaahay waxaan ka hortiisaynaa horta inuu gargaaro dadkaas muslimiinta dhibaatada iyo gaajaysiinta lagu hayo waxaan rajeynayaa ilaahay inuu gargaaro annagana waxa weye tijaaba nagu socotaa insha allahu tacaala mar uma guuleysan doonaan islaamka ah meel kastoo ay joogaan saa ogtihiin baa hadda ka hor niman tataar la yidhahdaa yimid muslimiintu ka dhigeen waa babaasheen waxa weeyaan sida maanta hadda waxa dhacay oo kala dhacay in la kala qaybsamo qaar ayaga la shaqeeyaan muslimiin badan ay xasuuqeen macnaa gaajaysiin xataa ayagana ulta kuwa sameeyeen laakiin islaamku iyo diinta islaamka dadka muslimiinta ah ismaysa dhiibin way adkaysteen intay adkaysan kareen marka ugu dambeyntii maxaa dhacay waxaa dhacay in ayagana horta markii ugu horreysa waxa la sameeyey waa la jabiyey waa laga adkaaday waxaa laga adkaaday kabacdina maxaa la sameeyey allahu mustacaan waxaa la sameeyey sidoo kale ayaga in la kala qaybiyo oo qayb muslimiin laga dhigo diinta la gaarsiiyo markii dambena dadka diinta u adeegaya ay ka muuqdeen marka waxaa ogaataan insha allah dadka hadda arkaysid maantay dhibaatada dhacaysa ka geysanay dadkaas inta yarta arkan kuwa cadda yartaa intaad aragtee leeg 2 milyan oo qof ay ku nool yihiin dhibaatooyinka jira arkaysaan carruur gaajaysan dhibaataysan hooyaheed barjira gaajo u baktiyay maalin walba u dhimanaya runtii wallaahi waa aad wax loogu xumaado ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu gargaaro u heliyo nasri khayr qaba siiyo oo degdega waxa weeyaan ilaahay xaggiisa inuu raqaskaniyo xagga ilaahay in laga quudiyo waxa weye reer bani israa'iil sidii samada looga arsaaqo kale in ilaahay subxaanahu watacaala iyagana samada looga arsaaqo oo risq khayr qaba la siiyo ilaahay subxaanahu watacaala u yidhi qalbigoona adkeeyo waxa weeyaan muslimiintu waxay ku ducaystaan waxaa weeye ilaahu wathabbit aqdaamana ilaahu lagu yahana macnaha geesiganaga ilaahu sii xooji marka qofku inaad sii sugnaadaan iyagana insha allahu tacaala dad waxa weye iimaankooda waxay u dagaalamayaan yaqaan weye maanta waa iska dhibaatada iska jirta wadamada carabta aa la yaabaysaan waxba kala yaabineen hadda waxaa lasoo dhigay waxa ahayd madaxweynihii hore xusni mubaarak miwa waa ka qayb qaadanayay macnaha wuxuu dhiirigelinayaa weerarkii macnaha kuwii dadkii la qabsay laga xoreynayay laga saarayay ninka la yidhahda sadaam xuseen macnaha wuxuu ku dardargelinayay meesha in sadaam iyo awoodiisa meesha laga saaro laga fuliyo ayagaba xataa cadow isku ah ayaga cadow isku ah isma jecla laba walaal soomaaliya fiiri waxa ugu xun oo istagaali waxa waa laba qabiil oo daris ah qabiilada aan dariska ahayn nabad walaalo weeye labada dariska ah oo isku maxaa keenaya waxa dhex yaala caqligii maskaxda ku kala hagi lahayna ma jiro labada dariska ah labada dariska ah tusaale oo kale labada qabiil aan dariska ahayn farad kama dhexayso laakiin labada qabiil oo dariska ah wax iskaga cadowsan lama arko buqcad yar oo 2 mitir isku haystaa maxaa la rabaa buqcadda ilaahay baa iskale ina alarda lilah ilaahay yurisu man yashaa dhulka ilaahay baa iskale cidduu doonu dhexalsiiyaa qof kasta wuxuu ku leeyahay intuu seexdo iyo inta labada iyo ka leeyahay dhibaatada maxay ka timid qabiil buu xiraa qabiilka ka dhul weynaado saasuu rabaa qabiilba qabiil inuu ka dhul weynaado rabaa maxaa kaloo dhibaatada waxaa waaye reer baadiyaha
baadiyaha dhibaatada ayaguna qayb bay ka yihiin. Sidee weyn yihiin? Xoolaha waxay rabaan meel iskaga darsadaan. Haddii xoogaa ayaga reer baadiyaha laftigooda bedel lagu sameeyo u baahan yihiin oo ah in meesha ay xoolaha raacayaan, xoolahooda mid kasta la sameeyo meeshiisa, loo sameeyo beer looga sameeyo meel hal kiiloomitir la siiyo, halka kiiloomitir la yiraahdo deg xoolaha ku dhaqo, ceel looga qodo. Xoolahana markaas wax soo saarkooda badnaanay. Abaartan tirada badan iyo macluushaana waa laga bixi lahaa. Marka dowladdu inay soo iibsato tusaale oo kale dhowr riig oo ceelasha qoda, dowladdaa soo iibsanaysa. Ka bacdigeed dadka si free ah ama hal ceelba waxaa laga dhexaysiinayaa 10 qof. Waxaa la ceelka adinkaa iskale. 10 mitirna adigu 10 kiiloomitir square waa la dejinayaa. Mid kasta hal kiiloomitir baa la siinayaa. Halka kiiloomitir oodo wareegso ku waraabso. Ama ka yar adigu boqol u dhufto kale. Meeshaas caws beeranayaa. Xoolaha qofka ugu badan Soomaaliya 200 oo neef leeyahay. 200 oo neef ka badan baa lagu beeri karaa oo laga beeri karaa. Caano yeelanayaan, hilib bay yeelanayaan, caafimaadkooda fiicnaanaya. Qofkan hilibka laga raysanayaa, rafaadka markan ilmaha xataa baadiyaha waxba ma bartaan. Xoolo ma ogoleen sabab maxaa waaye arigaas la raacay. Barasho la'aan hadhowtana dagaal ka qayb qaadanayaan, dhibaatooyin ka qayb qaadanayaan. Maxaa loo baahan yahay ilmahan hadhow faa'iido ka helaya carruurta. Waalidkan waa lugooyadoo ka tirsanaya. Abaaraha looga raysanaya. Colaadaha xoolaha ku yeeranayaan. Igu soo duruqday iyo dhul baa iga degan tahay. Arigayga meesha daaqi lahaa waa timid. Waxaas dhan iyadana waa laga raysanaya. Marka caqligaa ku fikiri lahayn iyo hoggaankii fiicnaa waa laga maqan. Hal nin oo geesi ah xataa ma lihid. Geesi maxaa waaye maanta geesi waxaa waaye ninka ku dhiirrada waxa ummadiisa u anfacaysa. Qof ku dhiirrada waa balaa'i. Maxaa dhacay? Xaggee dhibaatada ku jirtaa? Ilaahu noo yeeli. Akhyaarta aad u mahadsantihiin muuqaalkan insha Allahu tacaala horta like saara. Warbixinadana waa soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dhibaatooyin badan baa iska jira wallaahi. Dagaalada colaadaha waa aragtay maamul goboleedyo dagaalo iska tira meel alla meel u socdaan ma yaqaan. Aniga waxaan dhihi lahaa marka muuqaalkan aan kasoo sameynaa fikirkeyga. Maamul goboleedyada qaab kale haddii loo bedelo ka war iyagoo dhanba. Macnaha fiiri maamul dadku ay leeyihiin. Laakiin heerka awoodda xata ciidan tira badan maamulkii ka dowladda ka ciidan badan. Muuqaalo tira badan baa soo wadaa. Meel badan looga hadlay. Like saara muuqaalka insha Allahu tacaala. Sidoo kale subscribe dhaha. muuqaalkan dhammaystiran. Nugu xirfadaad bacdi diilayn. Assalaamu calaykum warahmatullahi